toddoba kulan ayaa maanta dhacay oo Premier League ah. Toddobadana runtii ciyaartii ugu horreysay waxay dhex martay Nottingham Forest iyo Chelsea, taasoo Chelsea 3-0 ay ku adkaatay, waxayna sababtay in tababarihii Postecoglou laga raacdeeyay shaqadiisa, taasoo shanta ciyaar oo Premier League oo ciyaar hal ciyaar leh oo barbardhac keenay, inta kalena laga adkaaday. Waxaan la soconnaa kooxda Nottingham Forest in laga raacdeeyay tababarahoodii kaalinta toddobaad keena Nuno Espirito Santos, hase yeeshee qaabkii uu ku dhisa kooxda Espirito Santos waxay ahayd koox difaac ku dhisan, weerar celinna ku shaqaysato, hase yeeshee Postecoglou nidaamka uu wato wuxuu ahay nidaam weerar ku dhisan, suurtagalna ma ahayn 39 maalmood inuu ku bedelo arrimahaasoo dhan. 39 maalin gudahood ayaana lagu raacdeeyey, runtiina waa kooxaha ugu hooseeya ayay hadda ay ku jiraan, waxaana loo maleeyaa inay macallin kale keeni doonaan wiigan aan ku jirno, ay raadi doonaan kaasoo badbaadiyo, laakiin qaladkii uu galay milkiilaha maanta waxaan qabaa macaankeedii inuu haayo. Chelsea-na meel fiican ayay timid oo kor ayay u soo kacday, oo waxaan isleeyahay Chelsea xaaladeeda aad iyo aad ayay u fiican tahay. Haddii aan ka gudbo kooxda Bournemouth iyo Crystal Palace, ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhex martay, taasoo 3-3 ay ku kala tageen, inkastoo Bournemouth 2 gool ay la hormartay, haddana 2-2 laga dhigay, laakiin saacadihii ugu dambeeyey ay Bournemouth gool saddexaad ay dhalisay. Si kastaba haatee Crystal Palace waxaa u suurta gashay Mateta inuu gool kulaad oo u dhaliyo oo 3-3 ka dhigo, taasoo la yaab leh kooxda Bournemouth. aan ognaa 4 ciyaartoy in laga gatay, khaasatan 3 ka mid oo difaaca, weli inay tahay koox xoogan oo aad iyo aad looga cabsado, weerarkoodana aad iyo aad u fiican, gool dhalintoodana aad iyo aad inay u fiican tahay. Marka waxaan isleeyahay tababaraha Orola ma u malay doono inuu Bournemouth uu sii joogi doono haddii uu ku sii socdo. dhanka kale waxaa laftigooda dhacay ciyaaro kale oo aad iyo aad u xiiso badnaa ayaa dhacay, oo waxaan la soconaa Brighton iyo Newcastle inay Brighton 2-1 ay ku adkaato. ciyaaryahankii Newcastle oo ciyaaraya Jarmalka Veltman inuu 4 ciyaar oo isku xigto, inuu 4 ciyaar oo Premier League inuu goolal u dhaliyay, taasna welina Alexander Isakna 1 gool kaliya uu dhaliyay, Veltmanna oo booskaas uu buuxiyey, oo Newcastle inaysan walwal ka qabin gool dhalinta, meeshaasna ciyaaryahankaas inuu u buuxiyey, runtiina shaqadii oo aad iyo aad u wada, inkastoo guuldarre ay ku dhacday. laakiin ciyaartii ugu xiisaha badneed uguna fiicneed waxay ahayd ciyaartii dhex martay Everton iyo City, taasoo City fursad ay u haysatay inay ku soo noqoto Premier League, hase yeeshee hoggaanka si ku meel gaara u sii qabatay kadib markay Everton 2-1 ay uga adkaatay. Cityna waxaan la soconnaa qaybtii hore in fursado badan ay sameeyeen, hase yeeshee ay ku kala tageen labada koox eber iyo eber, in qaybta hore ay ku kala tageen. markii la isku soo noqday City waxaa malaysaa qaabkii ay ku ciyaaraysay in xoogaa ay ka bedesho, inta badan doogkoo kubadda markii la siiyey in 2 qof ay meeshaas ay ku qabanayeen, Obran iyo ciyaaryahanka India inay qabanayeen, ay u suurtageli weysay inuu maro oo wax soo dhigo. hase yeeshee City kubadda dheer ayay aad iyo aad u ciyaarayeen, oo goolka koowaad waxaan la soconnaa ciyaaryahankii nambarka 3 uga dheelayay kooxda City oo rally inuu kubad fiican oo cross uu soo qaaday Haaland oo madaxa uu ku dhaliyey, tii dambana Savinho kubad aad iyo aad u fiican oo gees laga siiyey inuu dhexda u soo dhiga xarqin 18 asigana uu raacsiiyey. goolahayahana runtii Beckford wax uu ka qaban kara ma jirin, oo sababtoo ciyaaryahanka difaaca u ah Everton Toski ayuu ku dhacay kubaddaas, taasna uga aadanay markay kubaddu u timidna waqti uu ku boodo ma ahayn. laakiin Haaland waxaan qabaa maanta ugu yaraan 6 gool ama inuu 5 dhasho karay, markii khaasatan ay ciyaaryahanadii oo Bernardo Silva markuu yimid, Kovacic markii la keenay, Cherki oo Faransiisahay markii la keenay, ciyaaryahan kale Bob markii la keenay, kadib City waxaa u malaysaa ciyaarta inayba kontrooshay oo 3 kubad oo la galay keligiis oo dhaliwa, oo Bedford 3daba uu ka badbaadiyey, taasoo Everton ay ku khasbanaatay inay afka hore ugu tagto Cityna ay jaanta isla hesho. oo runtii waxaan qabaa in meesha ay joogeen ciyaaryahano fiican oo aad iyo aad u farsamo badan, oo Phil Foden ayaa joogay, Cherki ayaa joogay, waxaa kaloo jooga Kovacic oo kubadaha markii la siiyo si fiican u jiidaya, u dhaqaaqaya, meel fiicanna kubada ka bixinaya. wiilkan kaloo yaroo laftigiisa oo Norwegianka Bob aad iyo aad ayuu u fiicnaa runtii, inkastoo gaaban yahay orod badan oona lahayn, haddana kubadda markii lugtiisa soo gasho halis ayay ku jirtaa, oo difaaca inuu mara ama meel fiican inuu ka dhigo
ayay u badan tahay. Waxaan isleeyahay mustaqbalka wuxuu noqon doonaa garbaha laga cabsada ayuu noqon doonaa farsamo ahaan markii aan fiiriyo cayaaryahankaas. Cityna ma qaba aniga in ay sidii ay ahayd ay ka xoog badan tahay, laakiin waxaan u malaysaa kooxdan hadda timid inay isla soo qabsanayaan, difaac ahaanna difaacooda inuu degan yahay oo fursado badan aana lagu samayn, oo hal fursad oo aad iyo aad u fiican in Ndiaye xarqin 18 uu soo dhigay, taasoo cag hadduu ku dhali lahay Bento in kubad fiican ay ahayd, taasoo lugta uu la gafo isku tuuray, hase yeeshee uu gaari waayo. Fursadaasna qaybtii hore ayay ahayd, laakiin Everton uma muuqan koox cabsi ku hayso ama ku hay karto City oo inta badan kubadda waa laga maamulayay oo ilaa iyo 19 mar ayaa goolkooda la toogtay. Kooxda Everton boqolkiiba 72 na kubadda ayaa laga haystay. Taas waxay ku tusaysaa City kubad haysashadeedii inay dib u soo noqotay. Welina waxaan qabaa aniga qaybtii dambe 15 daqiiqo ugu dambeyso ciyaaryahanadan la keenay in City ay aad iyo aad dhaqdhaqaaqeedu isu bedeshay, si ku meel gaarna hoggaanka inay u qabatay 16 dhibcood oo ayaga iyo Arsenal inay u dhaxaysay kala duwanaanshaha goolasha oo City gool dhalinta inay uga fiicneed. Arsenalna runtii waxay maraysaa 40 daqiiqo barbardhac ayaa lagu hayay iyo Fulham. Arsenalna waxaa ka go'an inay badiso, hadday badiso hoggaanka ayay ku soo noqonaysaa, oo Bournemouth xataa hadday badi lahayd hoggaanka ayay la wareegi lahayd oo 17 dhibcood ayay qaba lahayd oo meel dheer lama kala jiro. oo haddii ay badiso kooxdan Arsenal birina waxaa laga yaabaa Liverpool inay soo badiso, in haddana isbedel kale uu dhici doono. Laakiin labadooda hadday barbardhac galaan ama ay badi waayaan, waxaa laga yaabaa kooxahan cusub oo yimid Bournemouth iyo City iyo Chelsea soo dhawaatay inay meesha ay imaan doonaan. Marka horyaalka waxaan qabaa in aad iyo aad la iskugu dhadhowyaa oo meel dheer aan la kala jirin, oo kooxaha badankood inay soo kabsanayaan, oo Chelsea ayagoo difaac badan ka maqan yahay inay haddana ay banaanka Nottingham Forest ay 3 gool uga adkaadaan. wax cajiib ah waa runtii, aad iyo aad u fiican. ciyaartooy badan ay ka dhaawaceen, Conceda xataa ciyaarta uu fadhiyay oo gadaal ayaa laga keenay, oo Latvia ayaa dhexda ka dheelay iyo Malo Gusto, inkastoo calaamada gaduuda 2 yellow oo qaatay laga siiyey. marka inkastoo ciyaarihii wareegii 8 ciyaar la ciyaaray, haddana lama kala fogfogo, aadaa la iskugu dhadhow yahay. marka waxaa la filayay in Liverpool iyo Arsenal ay faka doonaan, laakiin hadda waxaa malaysaa in lagu soo dhawaado. taasna waxaan qabaa Premier League kooxaha inay aad iyo aad u adeegeen, oo Everton qaybtii hore City eber ayay ku marsiisay, inkastoo fursado lagu sigay oo gool laga dhali karay, haddana maysan dhicin. marka Premier League waxaan qabaa in saan loo wada soco doono, la iskugu dhawaan doono, oo aad aan loo kala carari doonin. taasna ay sababayso kooxaha inta badan xoogan iyo horyaalkii hadda bilowday oo ciyaartooyda energy hayaan, laakiin maray ahaataba waa la kala carari doonaa, waana la kala sika doonaa. ciyaarta biri dhici doontana inta badan waxaa la saadaalinayaa Manchester United in ay birito wax ka keenayso ayaga iyo kooxdii Liverpool, oo la Liverpool dhibaato haysato. inkastoo dhibaato haysato, haddana aniga ma qabo in Liverpool gurigooda joogto Man United ay ka adkaa karto. Liverpoolna runtii ciyaartooyda cusub ee timid iyo ciyaartooydii hore way isla qabsanayaan. xagga difaacana waxaan isleeyahay kooxda waxay u baahan tahay in si wada jir ay wax u difaacaan, ma aha gooni in lagu eedeeyo Ibrahim Konate ma fiicno, garbaha ma fiicno, wadajir ayay wax u difaacaan. wadajirkiina ma jiro, laakiin waxaan isleeyahay wadajirkoodii uu soo noqonayaa. weerarkoodana waxaan isleeyahay isbedel ayaa ku dhici doona, oo ciyaaryahankan aad iyo aadka loo eedeeya dhammaantood. Isaac eed ayaa lagu hayaa, Maxamed Saalax eed ayaa lagu hayaa, Florian Wirtz sidaasoo kale. marka waxaan isleeyahay Liverpool waa soo kabsan doontaa birina. waxaan isleeyahay inkastoo ciyaar adag ay tahay, aniga ahaan waxaan isleeyahay Manchester United in laga adkaanayo ayaan isleeyahay markaan ka fiiriyo weerarka Liverpool ay haysato. inkastoo ay dhici karto hadduu difaac adag dhisto oo weer celin Imumba iyo ciyaaryahanka Matthew Cunha oo horey u dirsado oo weer celin ay ku shaqaystaan, waxaan isdhihi karaa guul aan la filay ama barbardhac ayuu keeni karaa. laakiin si kale muu u malaynayay in looga badi karo Liverpool gurigooda oo joogto mis aamisani iyo lacagii ay qarash gareeyeen iyo culays ka saaran. marka ani ahaan biri waxaan isleeyahay Liverpool ayaa guuleysanayso. ma kula tahay City ma soo dhawaatay horyaalka rajo ma ka leedahay? sidee adiga kula muuqataa Bournemouth oo aan la filaynin Champions League ma soo geli doontaa Bournemouth? markaan fiirino sida ay u cayaaraan ayagoo bannaan ku dheelaayo ayay kooxaha
cadaadinayaan ay wacdaran ay dhigayaan siday adiga kuula muuqataa arrimahaasoo dhan Premier League adoon u fiirinayn kooxda aad taageerta ee fiirinaysid xaalaha xaqiiqadaha ee jiro kooxdii Soomaaliya ee dekedahana qaybtii hore 3-0 ayaa lagu lahay qaybtii dambena wixii ka yimaado barnaamijyadeena dambe ayaa nala socodsiin doonaa dekedaha ayaa Zamalek ayaa Egypt ku dheelaya 3-0 Zamalek ayaa 3 gool dhalisay oo 3 ayay leeyihiin